wada dhaqmeedyo kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ayaa ka soo horjeestay nabadoon dhawaan halkaasi lagu caleemo saaray sida faafinta warkaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan inoogu soo diray Cismaan Aadan Careys oo Somali Channel magaalada Beledweyne uga soo warama. kulankan ay isugu yimaadeen odayaashii wacgaradka ayaa waxay si weyn uga soo horjeesteen doorasho dhawaantani lagu sameeyay gudaha magaalada Beledweyne ee lagu doortay nabadoon matala beeshaasi iyadoo ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid aan loo dhamayn ee beesha ay iska arkin dadka sameeyay yihiin kooxo markaasi ay kaga soo horjeedaan in aan arrintaasi loo dhamayn waa kuwan qaar ka tirsan odayaasha kulanka maanta ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. shirka meesha ka dhacay waxa isugu yimid wax dhuumashaale wax qarsoon midna maahan dadka la degan oo gobolka deganna waa nuug yahay maanta meesha ku jireen waxaan ka shireynaa aryaamo dhawad qaaqul dhacay oo soo yeeray oo la yiri nabadoon la duubaya kala go'aad warsamay wax baa jira shaqaaqa jirta waxaas ayaa isku kaaya keenay waa waxaan jirin waa waxaan dhicin adduunyo saxaafadda waxaan u sheegaynaa aadan warsame intuu ka koobnay baahiisii oo dhow u fadhinaa waa midaysanahay waxaan ku midaysanahay tawfiiq waxaan ku midaysanahay nabadoon inuu suuriyo xuseen xayowya 10 sano duuban yahay nin kale oo bannaanka looga yeeray wuxuu yahay mal yaan la qabanin nooma jirto arrintaas waxaan rabnaa dal iyo dibad inaad gaarsiidaan saxafiyiinta inay u sheegto soo saarto dalka u sheegto maamul gobolka jiro u sheegto dadweynaha Soomaaliyeed la degan u sheegto saxaafadda dibadda la gaarsiiyay alxamdulillah rabbil alamin anigoo ah Salaad Uduwaay Axmed oo aadan warsamo ah shirka halkaan isugu nimid aadan warsamo hadal yeeray oo been ah ayaan waxaan isugu nimid inaan beentayno oo caalinka u sheegnaa inay been tahay aadan warsamo waa mid hal nabadoon uu leeyahay waa midaysan yahay waxaan caalinka u sheegaynaa oon u sheegaynaa maamulka mid gobol iyo mid degmo yaan u sheegaynaa beesha xawaadi inaa aad warsame oo midaysan yahay nabadoon uu yahay suuriye xuseen xayow waa been waxaan beentaynaynaa hadalkii barirood ka yeeray haddaan la kuuda baar xasan dhiif oo xasan waxaan sheegayaa meeshaan inuu isu yimid maanta aadan warsame 3 dib oo 10 odoo aadan oo wax ka maqan aan la arag ay u yimideen arrintaas war ka dhacay oo walbaarka xasan dhiif oo la yiri nabadoon aan ku dooranaynaa inaysan xabba ka jirin oo aadan warsame dooran oo aadan warsame u kulmanayn oo ay ahaayeen koox yar ay ahaayeen oo tafaraar quwadda midkii la doortay 10 sano ka hor oo lahay suuriye xuseen xayow ayaa nabadoon noo ah haddana wixii gaaray ka titiraynaha wasaqa arrimahan ayaa ku soo beegmaysa qabsiga la xiriira beelaha nabadoonadooda xilli ay dhawaantani loo diyaar garoobayo doorasho la filay inay ka dhacdo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan taasoo doorashada beeluhu ay markaasi ku dooranayaan ergooyinkii matali lahaa Cismaan Aadan Careys TV-ga caalamiga Somali Channel